السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa habeenimo Arbaca oo Khamiis ay soo galayso taariikhduna waa 6 bisha Agosto sanadka 2025. haddaba barnaamijkeena caawa waxaan idinku hayaa wararkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. waxaan idin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah safiirada dalalka reer galbeedka ee ku sugan magaalada Tel Aviv oo Netanyahu iyo kooxdiisa uga digaya inay xoog ay ku weeraraan Gaza oo ay qabsanayna yiraahdaan cawaaqibka ka dhalan kara. safiirka Faransiiska ayaa u sheegay Netanyahu iyo kooxdiisa oo berito kulmi doona. haddaba xog laga helay sidoo kale ayaan idin soo gudbin doonaa kulanka berito ajandayaasha ay doonayaan Netanyahu iyo kooxdiisa inay markaa shirka la yimaadaan. haddaba xaaladan ayaa aad looga dayrinayaa qorshaha ay maleegayaan khatarta uu u keeni karo shacabka reer Gaza iyo maxaabiista laga haysto iyagana labadaba. haddaba tafaasiil iyo wararkii ka soo kordhay sheekada waan idin soo gudbin doonaa. Xamaas oo sheegtay inay dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen raashinkii cirka laga soo daadinayay oo ay sheegeen inay khatar badan dadka ku galayaan arrintaas, waxayna ugu baaqeen dowladaha Urdun iyo dalalka kale ee cirka ka soo daadiya diyaaradaha raashinka inay dhulka soo geliyaan oo ay ka daayaan hawada sare waxa ay ka soo daadinayaan. haddaba tafaasiil arrintaa ku saabsanna waan idiin soo gudbin doonaa. mudaaharaad caawa ka socda xarunta wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil horteeda oo ay ka qayb galayaan kumanaan dad ah oo ay ku jiraan qoysaska dadkooda lagu haysto Gaza, ayagoo ka digaya in dagaal lagu qaado Gaza oo culus uu saameyn karo in dadkooda halkaa jooga oo maxaabiista ah ay ku dhintaan. haddaba tafaasiil ku saabsan wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay aynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirnana warar cusub hadday soo kordhaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan, habeen wanaagsan. waxaynu ku bilaabaynaa qaar ka mid ah danjirayaasha dalalka reer galbeedka ee ku sugan Tel Aviv ayaa bilaabay inay iyaguna qayb ka qaataan digniinta loo jeedinayo Netanyahu iyo kooxdiisa. horey waxaa digniintan u jeediyey dalal fara badan, waxaa soo kala jeediyey mucaaradka Israa'iil, waxaa soo kala jeediyey qaar ka mid ah ehelada dadka lagu haysto Gaza, waxaa soo kala digniinta jeediyey taliska abaanduulka ciidanka Israa'iil. laakiin Netanyahu, Smotrich, Ben Gvir qolooyinkan way iska dhagatirayaan. maxaa laga digayaa marka? waa la soconaa nimankan waxay taagan yihiin wax kasta ha nagu qaadato 6 guuto iyo 5 guuto ciidan waxaan hayna aan gelino Gaza, aan wixii ka hor yimaado dilno, aan qabsano ayada dhan, xataa maxaabiisteena ku dhintaan. waa macna nimankaasu marka berito go'aan leeyahay. berito marka digniinaha marka soo baxay waxa leeyahay war ka jooga, war waxa kana sameeynina, waxa idinka raaca waa la yaabaa ilaa hadda digniinihii socda. haddaba marka aan idin tuso digniintii ugu dambeysay caawa waxaa leeyahay safiirka Faransa u fadhiya Israa'iil waxa uu sheegay qabsashada la isku dayayo Gaza inay macnaheedu keeni doonto dagaal aan dhammaad lahayn. safiirka oo magaciisa lagu magacaabo Frederick Jornis ayaa sheegay waraysi uu siinayay hay-adda wararka u faafisa Israa'iil in isku dayga la doonayo in lagu qaato Gaza oo dagaal culus lagu abuuro uu keeni doono dagaal aan dhammaad lahayn. wuxuu leeyahay xarb oo laa nihaaya waayo, dagaal aan dhammaad lahayna meeshaa ka dhici doona, meeshaa waa lagu gacan gali doonaa. nin kasta uu digoyaa, Netanyahu waa loo digoyaa. waxaa leeyahay war meeshaa nimankaan lugihiina ugu teginin, cirkaas ka duqeeya meeshiina alaabtaas wata, laakiin maalinkan godaan baaraynaa iyo askaraan ku daadinaynaa iyo godadkaan dhex gelaynaa, alqasaamaan raadinaynaa aad tiraahdaan war maalinkaa eedi lahaydeen waaye. marka nin Falastiiniya wuxuu leeyahay isaguna wuxuu leeyahay aniga ma digaayo dhahay digniin ma ah ee waxaan Ilaahay ka baryeynaa kulaha haddaan Falastiin nahay inay dhulka noogu yimaadaan, lugooda ayagoo ku socda noogu yimaadaan, diyaaradahanaba nagu burburiyeen dhahay. hadda soo ayaga ma goosanin magaaladan qabsanaynaa, magaalada diyaarad laguma qabsado, waa in dhulka la yimaada, taangi iyo alaab iyo waxta iska soo hormariyaan soo galayaan. iideena waa ku feesteenina iska dhaaf
ومركي إلهي ونون عين هاي كليل أي نمك فلسطينية هالكاس تاجين مركا شاكو مركا هالكاس مرسا هذا هو مركا وحنا تسينيا حق للشيء إن لقى هلي قرشها للي هاي بريتو ويشريان نمكن هذا هو مركا أنا دتوسو وركي قدام بي شاكذا لقى قري أو كوسابسن شركة يحوجها لهلي الجزيرة وحلها هاي warbaahinta Israa'iil caawa waxay sheegeen inay heleen xogo ku saabsan kulanka Brito waxay sheegeen in khudada ama qorshaha qabsashada Gaza ay markaa la sheegay inay dhiiri gelinayso oo Falastiiniyiinta marinka Gaza inay ku dhiiri gelinayso inay isaga baxaan marka arinta ugu weyn waxa waay dadka inay cararaan oo magaalada isaga baxaan waay qorshaha kale golaha wasiirada kooban ee uu kula shirayo Brito Netanyahu waxa qorshihiisu yahay in dagaalka ay qorsheeyeen Gaza inay ku soo gabagabeeyaan 4 ilaa 5 bilood oo soo socota in markaa hawsha lagu soo dhameeyo qorshahan marka waxa la sheegayaa 4 ilaa 6 guuto oo ciidanka Israa'iil ah in halka la gelinayo si markaa dagaalkan sidiisaba Israa'iil ay u soo afjarto waxay doonto ha ku qaadato bay 4 ilaa 6 guuto waa la gelinayaa dhulka lagu galayaa 4 bilood ilaa 5 biloodna qiyaasta in waxa dhan lagu soo gabagabeeyo maxaa la soo gabagabeynaa Gaza dhan in laga sifeeyo macnaha nimanka leeyahay muqaawamada wixii dhimana dhintaan kadibna Israa'iil ay qabsato Gaza marka sheekadu marka nimanka waxa laga celcelinay marka waa intaas la leeyahay kulay natiijada iyo wixii ka soo baxa waa isla eegi doonaa waa arki doonaa Brito oo khamiisa ay kulan kaleeyay si kasta inta loola hadlo waa diideen Brito bal wixii soo baxa aan aragno marka ciidamadu kulay iyagoo amarka marka dambe way qaadan doonaa laakiin hadda wixii fakarkooda waa sheegeen waxaanu suuragal ma yahdeen laakiin haddii lagu amro amarka way qaadanayaan haddaba marka waxaan u gudbaynaa qodobka kale ee muhiimka ah ee barnaamijka ku saabsan Hamas maamulkeeda Gaza ka arrimiya waxay sheegeen diyaaradihii cirka raashinka ka soo ridaayay inay qaarna ku dhinteen dadkii qaarna ku dhaawacmeen sababtu maxay tahay diyaaraddu صندوق وين أو أي وحكة بوحانة سوريدي صندوق وحلو سمينا يا بارشوت معناها بارشوت وليه صندوق قاصدة سوردا كاركتين بارشوت كاس مركو إنو صندوق وحوق للك أقول عن وإسقوا حوقاه هذا يترتيب وأسود دجالو تلقلي مركب مركب قار وحنا عيا صندوق يدك قار إن بارشوت كي أبحواي بارشوتكي حوغا قبوجين لها oo maartay macnaha tartiib dhulku ku keeni lahaa inuu bixi waayo ciladaha iska dhici kara marka dhowr sanduuq oo asan u bixin dabaysho inta hawada ka soo qaado ayay dadkii ku dilaysaa marka waxa leeyahay dada u dhintay dadna way ku dhaawacmeen marka waxay codsanayaan in hawshan sida laga joojiyo haddaba marka aanadii soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera ayaa qoraysa waxa leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha Gaza waxay sheegtay in raashinkii kaalmada ahaa ee cirka laga soo daadinayay uu sababay dhimasho iyadoo sidoo kalena fawdada iyo gaajaduba ay sii kordheen wax faa'iido oo laga helo malaali raashinku cirka markuu ka soo dhaco ninkii xoog badan qaadanaya ilmihii masaakiinta agoonta islaamihii iyo wixii dhow waxba ma helayaan haddana kaaga daran dilowba ugu daraa raashinkii soo daadanay tiliraa dadkii dhan way soo baxayaan waa gaajaysan dadka markay soo baxaan raashinka baarshuudka tartiibuhu ku dagaa kaas moogtahay kuwa marka waxa soo dhexgalaya oo baarshuudku u furmi waayo kuwaas dadkii marka waa dilayaan marka sheekada iyaduna halkaasaan kaga gudbaynaa oo waxay ahayd wararkii ugu dambeeyay qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa caawa oo aan idin la hadlayo mudaaharaadyo waaweyn ka socda wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil horteeda iyadoo kumanandada ay ka dalbanayaan xukuumadda Brito inaysan go'aan ku gaarin in Gaza weerar kala dheeraad lagu qaado iyagoo sheegay in ay dadka halka lagu haysto dhimanayaan haddaba marka halka soo aad joogtaan waxaanu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena habeennimo oo aynu ku soo qaadanayno wararkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn
waan hubaa inaad si weyn uga hesheen macluumaad iyo warar aan kusoo gudbinay saakii barnaamijkii subaxnimo iyo kii galabnimo midkan caawana waxaynu kusoo qaadanaynaa wixii soo kordhay tan iyo intaas waxaynu kala maqnayn haddaba waxaynu ku qaadanaynaa qaybtan caawa aan idila hadlay mudaharaadyo waaweyn ayaa dhacaya waxaana dadka mudaharaad ka dhigaya ay leeyihiin waxaynu nahay qoysaska dadka lagu haysto Gaza waxay dowladda marka wasaaradda gaashaandhigga iyo weydiisanayaan waxay leeyihiin waxaan idinka codsanaynaa inaynaan weerar kale Gaza iyo dhibaato kale halkaa ku qaadin nimankan gabgablayaasha oo leh magaalada dhan qabsanayna intaasoo guutaan gelinaynaa waxba dadkeeniyaa dhimanaya ee fadlan dagaalka la joojiyo maslaxad waxa lagu dhameeyay si dadkeen aan u helno iyaguna murugtaas haysata laakiin wax dhageysana male Netanyahu iyo kooxdiisu adduunna ma dhageystaan qaramada midoobe ma dhageystaan iyaga dhexdooda xataa isma dhageystaan siyaasiyiintooda kale mucaaradka ma dhageystaan dadka laga haysto ma dhageystaan ayaga marka waxa way dad meel u socdo way kale meel ay ku soo hakan dooraan meesha ku soo hakadaan arkayna adikuna fakari aragti bal sheekada ka soo dhiibta xaaladda iyo meesha ku dhamaato waa arki doonaa brito wixii ka soo baxana barnaamijyada dambe ayaan idin kula socodsiin doonaa asxaabay fakari aragti soo qora fakarkiina iyo aragtidiina waa muhiim like garay oo share garay barnaamijka hadaad cusub tahay subscribe ka helo YouTube-ka Facebook-na follow garay inta aan mar kale kulmayno meel kasto aad joogtaan asxaabay nabadgelyo